alla marka walaalyaal wuxuu inugu jeclaanayaa inuguna xifdinayaa inuguna ilaalinayaa inaynu is ilaalinoon dadaalo markaynu dadaallo alla tabaaraka wa tacaala rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa ina kaalmaynayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa ina caawinayaa waa ina sugayaa khayrku ina jecelaysiinayaa walladina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maca almuxsiniin dadku ruuxu markuu dadaalo khayrka ku dadaalo meeshiisii ratago dadkiisa raadsado cilmigiisa baadho isku taxallujiyo rabbi qalbigiisa uu ka arko inuu dadaal adoonkaasi hayo rabbi waa kaalmaynaya tabaaraka wa tacaala laakiin allah tabaaraka wa tacaala intuu akhlaaq ku siiyey oo diin ku siiyey oo wax uu bixiyo wixii ugu qaalisanaa ku siiyey wax ilaahay uu bixiyo iimaan iyo diin baa ugu qaalisan intuu ku siiyey haddaad garan weyday haddii yaa wax kugu falaya wey yaa wax kugu falaya dhaqaaji abaalkaagu marka waa kaa ilaahay tabaaraka wa tacaala warka walaalayaal marka aan ka baqno janno waxaa lagu galaya akhlaaq wanaagsan wey cadaab waxa dadka geeyana waa akhlaaq xumada wuxuu rasuulkeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la weydiiyey akharu maa yudkhilu nnaasa annaar rasuul ilaahayow dadka maxaa ugu badan oo naarta geeya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam akharu maa yudkhilu nnaasa annaar alfamu walfarju buu nabi sal lla lay waslam dadka waxa ugu badanee naar geeya waa afka iyo xubinka taranka zinada faaxishada yacni dhowrsoonan la-aanta jidhkaagiyood xaaraam ka ilaalin weyday taasi dad badan baa naar ku geli doona ilahay ha naga xifdiya tabaaraka wa tacala dadka intooda kalena waxaa naar geyn doona waa carabka qaybta labaad ee naarta u badatay carabkoodaa naarta u shaqeeyey xan aflagaado cay dirdir xasad xumaan carab aan istaagayninba inuu wax cuno oo wax daaqa mooye maba nasan karaba wax yarba gurigeeda ma joogi karto waa inay hesho dad hadday dad heshana xadiiulmajaalis wax kale maaha xadiiulmajaalis waa uun xaaraan dad un la faaqidahayo oo wax laga sheegahayo oo la xamanayo oo lagu daba jiro oo ceebahooda la ururinayo khalaas dadna halkaasay ku tageen waxaa rasuulku sal lla lay waslam akharu maa yudkhilu nnaasa aljanna taa garanay ee dadka maxaa ugu badan oo jannada geeya wuxuu nabigu uri sal lla lay wasalam akharu maa yudkhilu nnaasa aljanna taqwa allahi wa xusnu lkhuluq buu nabi uri sal lla lay waslam dadka waxa ugu badanee janno geeyaay waa alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaag ruuxu akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo alla ka cabsigana ku dadaalo waxa ugu badanee janno lagu galaan waa labadaasuu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal waxaa sugan oo xadiid abu daawuud iyo diya fi lmukhtaara uu kusoo saaray min xadiidi abi umaama rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ana zaciimun bibeytin fii rabad aljanna liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqan guri jannada duleedkeeda ku yaalla ayaan u damaano qaaday buu rasuulku yuri sal alla alay waslam ruuxii muranka iyo dooda iyo qajajacda iska daaya xataa garba ha lahaadee xataa garba ha lahaadoo xaqba ha ahaatee ruuxii iska daaya jannada duleedkeeda guri ku yaalla waa guri dalxiis ahaano meel yara kore ku yaalla wa ayaan u damaano qaaday buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh wabibeytin fii wasati اljannati liman taraka alkadiba wain kaana maasixan guri jannada dhexdeeda ku yaallana waxaan u damaano qaaday ruuxii beenta iska daaya xataa hadduu kaftamayo xataa been kuma kaftamo hadduu dhab u hadlaya iskaba dhaaf ilaa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu kaftami jiray haddana weligii been kuma kaftami jirin weligii waxaan runahay kuma kaftamay nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxii marka beenta ka fogaada oo run ku dadaala xataa markuu kaftamayo ee dhab uusan u hadlayn nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam isagana jannada dhexdeeda guri ku yaalla un damaano qaadaya wabibeytin fii acla aljanna ujeeddadu waata jannada meesha ugu sarraysa guri ku yaalla waxaan u damaano qaaday liman xasuna khuluquhu
allahu akbar ruuxa akhlaaqdiisu wanaagsanatay waxaan u damaano qaaday guri ku yaala jannada korkeeda ku yaala soo labadii horeba kama sareeyo midna jannada duleedkeedu